qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa ka hadlay howlgallada ay wadaan laamaha amniga kaasoo lagu xaqiijinayo amniga magaalada Jowhar iyo deegaanada hoos yimaada dowlad goboleedka Hirshabelle. Xildhibaanadan ayaa u mahad celiyay saraakiil xigeenada iyo ciidamada har iyo habeen u taagan sugidda ammaanka dowlad goboleedka Hirshabelle. Hadaladoodina waxaa ka mid ah sida tan: anoo ku hadlayo xildhibaanada maamul goboleedka Hirshabelle waxaan u mahad celinayaa saraakiisha amniga qaybaheeda kala duwan sida taliyaha ciidanka booliiska Hirshabelle, taliyaha qaybta 27 taliyaha guutooyinka, saraakiil xigeenka iyo dableyda dhammaan waxaan ugu mahad celinayaa howlaha amni ay ka wadaan maalmahan dowlad goboleedka Hirshabelle. anigoo magaca ku hadlaya xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabelle hambalyo ayaa idin leenahay, waa idin mahad celinaynaa. howlgallada aad wadaana waa idin ku bogaadinaynaa insha Allah taala, waan ognahay waa idin ku jiifnaa inaad si laba jibaartiin maadaama Hirshabelle maamulka Hirshabelle uu gali rabo arrimo doorasho amniga inaad si laba jibaartaan ayaan idinku baaqaynaa, waxaana idinku bogaadinaynaa inaad amniga meesha aad wadin ka sii sugtaan insha Allah taala. aad baan idin salaamayaa. Baad saxaafadda. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Arabaan halkan ugu hambaleeyo uguna mahad celiyo ciidanka qaranka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan iyo kan Hirshabelle oo maalmahan la soo dhaafay dadaallo lagu xaqiijinayo amniga Hirshabelle gaar ahaan caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle Jowhar ka waday habeen iyo maalinne u taagan inay xaqiijiyaan amniga la dagaalanka argagixisada. waxaan leenahay hambalyo halkiina ka sii wada saraakiisha dowlad goboleedka Hirshabelle iyo kuwa qaranka iyo ciidamada Amisom oo sidoo kale intooda aan ugu mahad celinayno nabadeynta ay ka hayaan dowlad goboleedka Hirshabelle. waxaan leenahay halkiina ka sii wada dadaalkiina waa idinku bogaadihiina waana idinkugu hambaliyahaynaa runtii. waxaan rabaa inaan kula dardaarmo ciidamada qaybahooda kala duwan ee u taagan qorraxda iyo dhedada u taaganba inay amniga xaqiijiyaan, inay runtii dadaalkooda halkooda ka sii wadaan. sidoo kale intood waxaan rabaa inaan u hambaleeyo ciidamada qaybahooda kala duwan ee federaalka ah howlihiin in halkiina ka sii wadaan. Hirshabelle amnigeedu lama dhihi karo 100%, laakiin 70% waxaad xaqiijiseen inaad amniga dowlad goboleedka Hirshabelle ka shaqeysaan. nimankan argagixisada ah ee wadooyinka taagan ugu baabi'inaya maalin kasta waxay u baahan yihiin in sidaas oo kale loola dagaalamo, dadaalkana la laabo. waxaan rabaa inaan halkan uga soo jeediyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Hirshabelleba inay ciidanka ay ku dhiirigeliyaan amarada iyo dadaalka ay sii wadaan ay halkaas ka sii xaqiijiyaan sugidda amniga dowlad goboleedka Hirshabelle. runtii waxa Hirshabelle haysto ma ahan ciidan shabaab ah oo awood leh ay ku xaqiijiyaan amba kula dagaalamaan dowladda Soomaaliya amba Hirshabelle state-keedaba, laakiin 4 qofood aba 4 cunug ee geedaha hoostooda ku jirto inay maalin kasta nagu baabi'iyaan runtii waa wax laga xumaado. waxaan leeyahay dhaqdhaqaaqa aad bilowdeen waa idinkaga mahad celinaynaa. waxaan rajaynaynaa inaad ka sifay doontaan nabadiidka Hirshabelle guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Hirshabelle. runtii annaga amnigu waa qayb ka mid ah nolosha. haddaan amni uuna jirin nolol ma jirto. marka waxaan idinkaga mahad celinaynaa, waan idinku faanaynaa runtii adinka la'aantiina nolol iyo maxaa la dhihi jiray in la harsado ma jiri lahayn. runtii waana idin garab taagannahay. haddii loo baahdo inaan qoryaha qaadanana waa qaadanaynaa, haddii loo baahdo inaan idinla socono waa idinla soconaynaa. annagana furantiyeeraan qayb ka nahay. baarlamaanka Hirshabelle annagoo ku hadlayna magacooda dhallinyarada annaga waxaan diyaar u nahay inaan amniga wax ka xaqiijino. sidoo kale waxaan rabaa cid walba ee la soo qabto ee amniga wax u dhimayso in la xaqiijiyo baaritaankeeda aan la sii deynin. weliba qofkii lagu qabto dembi oo ka dhan ah maxaa la dhihi jiray ka dhan ah amniga Hirshabelle iyadoo faraha kula jirto inaan la wadwadinayna sii noolaan ee halkeeda lagu toogto
maxaa yeelay haddaanan la samaynin sidaas waxaa dhici karto in amni darradu ay sideeda u sii socoto. waxaan rabaa marka inaan ku dhiirigeliyo ciidanka qaranka Soomaaliyeed iyo booliska Hirshabeellaba inay howlahooda halkeeda ka sii wadaan. annaguna waxaan diyaar u nahay inaan gacan ka siino wax allaaliya wixii nala kaga baahdo. adinkana aad u maasantihiin, waxaad qayb ka tihiin amniga saxaafadiinna. waxaan idinka rabaa inaad habeen iyo maalin aad u taagnaataan, aad qayb ka ahaataan nabadeynta, amniyeynta, horumarinta Hirshabeelle. aad u maasantihiin. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Liibaan Cabdulle Maxamed, Liibaan Lakiban, Somali Cable TV, caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle, magaalada Jowhar.